deegaan lagu dhaxeeya laba maleeshiya beel ayaa dib ugu soo cusboonaaday deegaana ka tirsan gobolka Sanaag. Faafahinta amuurta warkaasi waa eegaya wariyaheena Ibraahim Maxamed Xasan Jamoni. wararkii naga soo gaaraya gobolka Sanaag ee waqooyiga Somaliland waxa ay sheegayaan in dagaal beleed xoog leh oo maanta ka soconaya deegaanka Waqdariya oo dhaca xeebta gobolkaasi. dagaalkan oo bilowday waa berigii hore ee Sabtida maanta ayaa waxa la sheegay in xooggiisu uu ka soconayo deegaankaasi oo galbeedka uga beegan degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag. dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega, waxaana la sheegay in sanadihii la soo dhaafay ay dagaalo badani ku dhex mareen deegaano badan oo ka tirsan isla gobolka Sanaag. ilaa hadda si rasmi ah looma ogaan karo khasaaraha ka dhashay dagaal beleedkaasi. isgaarsiinta deegaanka oo aad u liidata awadeed maamulada Somaliland iyo Puntland oo ku hardamaya gacan ku haynta halka ay maanta dirirtu ka socoto ayaan wali wax war ah ka soo saarin. sidoo kale ilaa hadda ma jiro cid kala dhex gashay dhinacyada dagaalamaya. Ibraahim Maxamed Xasan, Ibraahim Jamoni, Radio Wadani TV.